السلام عليكم ورحمة الله وإن سلام عميلو باجوكتان قبل وهلا يسود واذا أبا إن سلام عيا وحن ما تعويك أنا أقصى نقني حتى قيمها أو هذا الجنة جوابيني كومنتي ذا يسود درتين يوحيالها أي يسوي ديسن أي كجواب جلال سو قاري أبا إني وحكول لي إنه حرجينا إنا عاف ما تقبتان ميلو باجوكتان بش برواق وجوكتان قبل وهلا سبسكرايب كهلا صار لايكتني يعني دلافين قبل كنا تابت سعاد إلى سعطان وحي عصبان سوق اليوم وإذنكو وصل برنامج كنا دميستا إن شاء الله وحمانت أكهد لنا قبل ولا شيء نيوزيلاند جوكتا سؤال يسوي ديسي عاد يقص عاد سطي وعند كل وح يسوي ديسان هل بنسوق لنا يا إن شاء الله وحن نوجح دون إن شاء الله هرود يفائدة إلى هرود سأكتهم بهرودا عنك عنتاد كدرسنا إبريز كدرسنا كرك إسكمرنا فأيضاً بدن بيلاده مركز تاسو كهذا دونا إن شاء الله لكن ما تو حن كهذا لنا ما أنت إنفكشن ككل عكادة هيست يكاد مرنك إن شاء الله قبل ولا شيء سيجارة هان ودقيس معانتو إنفكشن أو كاد هيست هرت لبك هذا مرين باجرة كاد مرين كل ده لبده كليوت kaadi mareen baa jiro u dhaxeeya kaliyaha iyo kaadi haysta iyo kaadi mareen u dhaxeeya kaadi haysta kuwa banaanka usoo saar korka ka soo saar marka kaliyaha shaqada horta aan labada kaliyood ka hadalno labada kaliyood ayagu dib kasto haysta ma dareentid ilaa ay kaliyo xumaadaan oo ay shaqada joojiyaan kaliyo waxa waaye waa wax ajaa'ib waaye كليو ديجي نظيفيان أو كساران وسخدة عصبة كساران ليراتك سكرت كساران ليراتك وسخدة كساران ليراتك شق عصبة هيان أنا ما أقول لكن ماشاس كون جيسه هالبدن جيسه ده إسكت جران ما أنا لقرته حنون كود يدب كود يوحد ويقرصان إلا كل ده وح إجارته هير أو دبعت آدوين وإحساس أنا لقى قبل كريم مرك كليها مهم وكليه إن الله صعدة ديوقت كليها حتى وكرك والا نظيفية أو كليها والا نظيفية سي كليها بسفة عن وشقية كليها كلك يقبوج كرك أيها شغل كله دي كركة دي كركة دي هوصل عاي دي كركة وحق وقابل سب كليها هو مركو كليه شقوين بدن بقف بنادك أو هاي مركو إن كليها أكف كرتان فوكس كين لبدا كليه أنا أركينين markii wali qof ma aragteen qof oo kaliya shaqayn waayeen oo dhiigga laga bedelo laga nadiifay ma aragteen dhibaatada ay maraan dhibka ay maraan ma aragteen inta la kaxeeyo oo qaybaha aan ka shaqeyna laga kaxeeyo meel gooniye oo mashiin ku rakaban yihiin aan looga dhaqaa 4 saac 5 saac bay qaadanaysaa 6 saac ayagoo dhintay naf ku jirin ay soo noqdaan bal imagine waa wiigi 3 jeer aan laga dhaqaa ka war annagana ma ogin كليها شقة أي هايان يمهمة أي كرك ولين بركي كليه مركي شقة وجوجيان واحد ديك يكون نظيفين عين الله وسقط ديك وكجرتا كاذي ما كاذيان دتك أوديك دتك كليها شقة وجوجيان ما كاذيان إن لقى قوة أوديك لنظيفين وسقط لقى صار مركي ما تكليها أي فكشن كذا هيست تكون دعاء كذا مرين كذا هيست تكون دعاء كهذا لنا إن شاء الله سيفع على ودك يستقبلها وهاي وح ugu badan oo keena bakteeriyada way keentaa viruska wuu keenaa fungal waxa la ahana way keenaa laakiin waxa ugu badan oo bakteeriyada kaada haysta kaada mareen ku dhaca waxay tahay keena bakteeriya waay bakteeriyada waliba korkeena ku jirta oo ilaahay ku abuuray oo meel gooni ugu jirto anaga waxba noo dhimaynin laakiin haday kaada mareenka ay gasho ay gaarto infection iyo dhibaato keenaysa marka E. coli boqolkii 9 infection kaadida infection waxa keena waxay tahay bacteria loo E. coli waxay anaga korka ilaahay baa nagu abuuray mindhicirada ay ku jirtaa mindhiciradena waa waliba mindhicirka weyn kan yar soo saatiin mindhicirka yarka ka nafaqadu inuu ka dhuuqo qaabilsan yahay uu qaabilsan yahay dhiigga marka cuntada cuntid uu nafaqada dhuqitaankeeda iyo biyaha iyo uu qaabilsan yahay mindhicirka yar laakiin mindhicirka weyn oo saxaradu soo marto ay E. coli ku jirtaa
saxarada la socotaa bakteeriyadaas waxba nooma dhibayso mindhicirkaa weyn way isugu jiri karta laakiin annaga wax dhibaato nooma geysanayso waxay dhibaato geysanaysaa markay kaadi mareenkaaga raacdo oo ay kaadi haystaada gasho markaasay infection noqonaysaa marka infectionka uu kugu ay noqoto waxaana xaggee ka timaadaa see u gashaa xaggee ka timaadaa saa oo la socotiin infectionka oo kaadi haysta ku dhaca waxa ugu weyn dumarkaa ku badan ragga iyo dumarkaa badan taas waxa dumarka saa ula socodsiina kaadi mareenkooda wuu gaaban yahay wuu ka gaaban yahay kan ragga wuu ka dheer yahay dumarkana kaadi mareenkooda wuu gaaban yahay marka easy bakteeriyada inay gasho oo ay kaadi haysti gasho marka waxaa sameynaysiin maxaa marka xaggee ka timaada bakteeriyada maxaa bakteeriyada geliyay kulli waxa ay ku xiran tahay waxay tahay way isku dhowdahay meesha saxarada iyo kaadi mareenka ee banaanka usoo saarta way isku dhow yihiin marka aan nadiifinayno isnadiifinayno waxaa muhiima wax nadiifa inaad isku nadiifiso oo aad markaad iska tirtiraysaan aan halkan hore saasta hore aan loo soo tirin laakiin gadaalkaa loo tiro oo marna aysan saxaradii dhinacaagan kore ee kaadi haystaada iyo aysan kaadi mareenkaaga iyo aysan soo gaarin mar walba saxarada waa in loo tiraa gadaal waa wada taqaaniina umaleyna haddaa aqoonina hadda barta saasaa mar walba gadaal waa inaa u tirtaa hore wax looma soo tiro waa gadaal inaa u dhaqdaa hore ha u dhaqin marka janis bakteeriyadii oo saxarada ku jirtay waxay kaadi mareenkay galaysaa kaadi haystay tegaysaa infection bay kugu noqonaysaa mid waa taas waxaa kaloo keeno galmadaa keenta galmada intaan laisgalmoonin oo taranka iyo aan la magaciiseynin waa in laisnadiifiyaa markii galmadu dhammaatana waa in la kaadiyo qofku waa inuu musqusha galo uu soo kaadiyo waa very important waxyaalaha xaqiiqda ah oo caafimaad ku dhisan yahay ma laga xishoodo wax oo qaladna lama sheegayo markii dadka xalaasha ay galmoodaan in lasoo kaadiyo waa muhiim marka waa in lasoo kaadiyaa markii ay galmada dhacdo gadaal make sure in saxarada aysan soo gaarin dhinacaadan hore aysan soo gaarin infectionka waxay ku keeni kartaa kaadi haysta infectionka kale oo nooca kaleo dumarka gala ay kugu ridi kartaa bakteeriyada E. coli gadaal u dhaq gadaal u nadiifiya insha allah kuwaas waay waxa ku keena marka symptom waxyaalaha aad isku arkaysa markii infectionku hayo waa maxay waxa waaye waxaad isku arkaysaa xanuun baa isku arkaysaa kaadidaadaa badanaysa musqusha kaadi badan baa ku qabanaysa mar walba kaadaa ku qabanaysa waxaa ku qabanaya markaa kaadinaysa way ku gubaysaa kaadida qandho yaraa ku qabanaysa waxay qandho qabow qandho yaroo kuleelo qabowba nooc kale ah ku qabanayso waxyaalahaas waa symptomka dhabarkaa ku xanuunaya dhabarkan hoosaa ku xanuunayo meeshaan kaadi haysta meeshadaa ku xanuunaysa marka infectionkaas wax fiican ma aha wuuna soo noqnoqdaa dad ugu soo noqnoqdaa jirto uu saa usoo noqnoqdashiisa dhakhaatiirtana ma jeclo inay siiyaan antibiotic mar walba haddii bil ka hor laga daaweeyey haddana uu soo noqdo haddana antibiotic lagu siiy dhakhaatiirta ma jeclo sababta inay antibiotic adig ku siinaynin ma aha antibiotica dhiigaaga cadow la dagaalamaya cudurro kale oo hadda aad qabin aa kugu dhacaya hadduu difaacaaga hoose dhaco marka taasaa keenaysa antibiotica badan inuusan korka u fiicnayn caruurta u fiicnayn qofna u fiicnayn dhiigaaga cad iyo difaacaaga ilaahay kugu abuuray uu la dagaalamaya marka waxaa isku daydaa mar walba haddaad halkuura antibiotica qaadataan inta kale inaa idinka aad isku marka bacteria aan ka hadalna bacteria iyad maxay jeceshahay bacteria waxay jeceshahay wasaqada wax qamiiray bay jeceshahay bacteria wax qamiiray oo qamiir ah ay jeceshahay ay ku tarantaa ay faaftaa taasna waxaa la diidaya inay bacteria kugu taranto oo kugu faafto aa la diidayaa waxaa muhiimad ah bacteria intay yar tahay in wax laga qabto marka waxyaabo idinka aad samayn kartaan oo guriga aad ku samayn kartaana jiro oo iskaga caawin kartaan uu korka idinka caawinayo korkiina difaacina ilaah idin siiyey inuu bacteria idinka baxdo marka waxaa muhiimad ugu weyn biyahaas waxaa waaye infectionka waxay u yihiin kaadi haysta iyo kaadi mareenka waxay u yihiin very important
waxay soo dhaqaayaan bakteeriyada kaada haysta kugu jirtay bay dhaqaayaan. waa inaa biyo badan cabtaa haddaad biyo cabin meeshii kaadidii ku jirto qamiir bay noqonaysaa soo maaha. marka bakteeriyada maxay samaynaysaa? way sii faafaysaa. bakteeriya waxay isku samaysaa, way isdhaldhashaa, si dhaqso isku dhaldhashaa. marka way isdhaldhalaysaa. marka waa inaa biyo badan cabtaa si aad flash ugu samayso oo ay kaa baxdo bakteeriyadii kaadida soo raacdo oo ay ka baxdo kaadi haystaada. waa very important in biyaha badan la cabo. kaliyuhuna way u fiican yihiin biyaha badan, way nadiifiyaan. kaliyuhu way shaqadooda way fiicnaanaysaa. marka biyuhu waa miisaankay kaa ridayaan biyaha, waxyaalo badan ay biyaha u fiican yihiin. marka infectionka oo kaada haysta ku dhaca waxaad isku dadaashaan inaa biyo badan cabtaan. marka maxaa kaloo keeno keeno infection kugu sii daahaya uu kugu sii badanaya markaa kaadida aad kaadin weyso. qof waxaa dhahaysa ku dhahaya saaka kaadi iigu dambaysa, ilaa saaka kaadiya ay hayso mana kaadin. marka kaada haystaada maxaa ku dhacaya? kaliyahaaga maxaa ku dhacaya? kaadidii meeshii ay kugu jirtaa. hadduu infection kugu jiro maxay samaysay bakteeriyadii? waxay samaysay way isla dhashay. marka waa inaad kaadisaa biyo cabtaa si ay bakteeriyada korkaaga uga baxdo. may fahanteen? inaa ay fahmaysaan. waxyaalo waxaa isku caawin kartaa jirto. waxaa ka mida oo bakteeriyada dilaaya toonta iyo malabka. waa toon aan fiiqay iyo malab. aad bay toonta bakteeriyada u dishaa. toontu dhiikarkay u fiican tahay soo la socotay. cudurro badan u fiican tahay. bakteeriyada ku jirta bahalkaaga kaada haystaada way dilaysaa, way ku caawinaysaa. marka antibiotic intaa cun lahayd waxyaalo badan adaa samaysan karo oo isku samayn karo. marka bakteeriyada maxaa la dhahaa malabka iyo toonta aad bay ugu fiican tahay ay u dishaa. marka waxa aduu samaysan karto oo cuni karta waa. waxaa kale oo bakteeriyada hadda idiin sheega yiri bakteeriyada waxay jeceshahay meelaha qamiirka ah oo waxay dhahaan gaaladu biyahoogu ku yar yahay ama biyahoogu ku badan yahay oo qamiirka ah way jecel yihiin, way ku tarmaysaa. liintaas meeshiiba waxay ka dhigaysaa qafiifinaysaa oo qamiirka bay ka yaraynaysaa. liintu bakteeriyadana waa dilaysaa. marka vitamin C-ga wuu fiican yahay. vitamin C-ga asoo kaniini asoo kaab waxaa jira oo kaniiniga biyaha lagu rito maaragta qabarka bixinaya wuu fiican yahay. infectionka kaadida infectionka wuu fiican yahay. meeshiiba kaada haysta buu caadi ka dhigaya, qamiirkii ka yaraynaya, bakteeriyada kuma noolaan karto wuu dilaya. marka biyaha vitamin C-ga badsada. infection hadduu ku haayo toonta iyo malabka isku darso. waxa ugu muhiimsan oo sameynaysana biyaha badsada. had kaliyihiina ogaada, qof kaliyaha ay shaqada joojiyeen adduunka wax ka daran ma jirto. qof ay kaliyaha shaqada joojiyeen biyaha 2 litir 3 litir maalintii inaa haddaa infection ku hayo hadduu ku hayninba labadaba inaa biyaha badsato waay. hadduu infection ku hayna waaba muhiim inaad sii badsato sida bakteeriyadu ay kaadaada usoo raacdo oo kaadaada u badato oo ay meesha nadiif u noqoto. marka maanta taas ay idinla hadlayaa. waxaan iska ilaalisan maadaama bakteeriya ugu weyn oo infectionka kaadada iyo mareyntka iyo kaada haysta keenta ay tahay E. coli. E. colina ay ku jirto annaga saxarada iyo markaa dhaqaysiin iyo markaa tiraysiinba gadaal u dhaqa, gadaalna u tiro, horeydana lama soo tiro. markii aad galmada gashaanna soo kaadiya. marka taasaa maanta idin caafimaadkiina ka warhaaya, kaliyihiina ka warhaaya. kaliyuhu shaqo weyn bay idin hayaan. korka dhiiga ee wasaqda ka nadiifiyaan. dhiikarka iyo waxay la qaabilsan yihiin iyo magaciisiga. marka caafimaadkiina ka warhaaya. kaliyihiina ilaa ay kalidu ay shaqada joojiso ama ay meesha ugu dambaysa ay taagan tahay lama dareemo. marka labada kelmood muhiim waaye. liintaas cuna vitamin C asoo kaab waxaa yaala kii biyaha lagu darsanayo oo aburka bixinaya. toontaas iyo geedkaasna cuna si joogtaa u cuna. infectionka idinkuma soo noqonayo. naagaha uurka lana wuu ku dhacaa, wuu u badan yahay infectionkaada haysta ku dhaca. marka xitaa haddii la daaweyn waayo uu daaho oo infectionkii la daaweyn waayo xaguu infectionka aadaya? kaliyahaagu galaya. kaliyaha hadduu galana way ku dhamaatay. sepsis uu kugu noqonaya, dhiigu raacaya bakteeriyadii. sepsiskan dadku dilaa. waa infection xun, isbitaal baa lagu seexinaa, dadka wuu dilaa.
marka intaysan kaliyahaaga aysan gaarin oo aysan wax u dhimin ama infection weyn ay iskugu noqonin oo aad ku dhimato adaa iscaawin kara biyahaaga badi korkaaga ka dhaq isnadiifi bakteeriyada saxarada ku jirta iska ilaali inay gudahaaga tagto iyo kaada bareenkaaga inay gasho marka maanta intaas aan la wadaagayaa meel walba aad joogto allah idin nabad yeelo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu